muxuu yahay hubka madaxweyne Vladimir Putin uu ku tashanayo ee hubka nuclear-ka ah ciidamada taangiyada diyaaradaha iyo maraakiibta ma ahan waxa kaliya ee uu haysto madaxweyne Vladimir Putin ee uu ku tashanayo hogaamiyaha Ruushka wuxuu cadawgiisa uu ku cabsi geliyaa inuu haysto hub qaasa oo aanay jirin cid kale oo la haysata haddii Mareykanka uu ku faano inuu haysto tiknoolajiyad aad u horumarsan Ruushkana wuxuu ku faanaa inuu haysto hubka ugu xooga badan caalamka kaasoo awood u leh in magaalada London iyo dhulxeebeedka Ingiriiska uu ku tirtiro dhowr sakanno oo kaliya sidii warbixinteennii hore aan ku soo gudbinay Ruushka wuxuu haystaa mid ka mid ah gujisyada ugu halista badan caalamka kaas oo gudaha ku sita dhowr ka mid ah gantaalada halista badan ee isaga kala gudbi karaya qaaradaha mid walba oo ka mid ahna wuxuu awood u leeyahay inuu xambaaro ilaa iyo 10 madax oo hubka nuclear-ka gujiskan waxa lagu magacdaray Typhoon class wuxuu awood u leeyahay in qaaradda Yurub iyo qayb badan oo Mareykanka ka mid ah uu ka masaxo dunida warbixintan waxaan ku soo bandhigi doonaa hubka madaxweyne Vladimir Putin ee uu haysto ee xooga badan kaas oo reer galbeedka sida weyn ay kaga baqayaan sidoo kalena waa hubka sida aadka ay kaga walwalsan yihiin isbahaysiga gaashaanbuurta NATO haddii ay wajahaan Ruushka si foolka foola waa midka Putin uu adeegsan karo kaas oo haddii Moscow ay adeegsato isbedel aad u weyn ku keeni karaya dabeecadaha dhanka xeebaha sidoo kalena sababi karaya in biyaha dhanka badda ay liqaan magaalooyin aad u tiro badan yacni awoodiisa marka la eego inkastoo ciidamada dawladda Ruushka kaalinta labaad ay kaga jiraan kuwa ugu xooga badan caalamka kaliyana ciidamada Mareykanka ay ka horeeyaan laakiin waxay haystaan hubka nuclear-ka uu awoodda badan caalamka marka la eego sidoo kale ciidamada Ruushka waxa lagu qiimeeyaa inay kaalinta koowaad ay kaga jiraan marka loo eego ku hubaysanaantooda hubka nuclear-ka gaar ahaan inay haystaan gantaalo kala duwan oo casri ah oo awood u leh inay xambaaraan madaxyada nuclear-ka sidoo kalena gaarsiin kara meel walba oo dunida ka mid ah iyadoo sidoo kale gujisyada badda hoosteeda quusa awood ay u leeyihiin inay xambaaraan madaxyada nuclear-ka tirakoobyadii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan marka in ciidamada dawladda Ruushka ay haystaan ilaa iyo 7,000 oo madaxyo nuclear ah kuwaas oo awood u leh inay hal mar dunida ay ka dhigaan dhimbilo waxaana ka mid ah hubkaas aan ka hadlayno hubka sida qaaska ah Ruushka ugu tashado oo aysan jirin dawlad kale oo dunida haysata sida Putin uu sheegay ciidamada badda waxay haystaan hubka nuclear-ka ee ugu khatarta badan dunida ee Doomsday Terror loo yaqaano kaas oo soo shacbaxay sanadkii 2015 sida lagu xaqiijiyay dukumeentiyada wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka lagana soo xigtay majalada National Interest gantaalkan Terror lagu magacaabo waxa laga soo ridi karaya gujisyada badda hoostooda quusa waxay awood u leeyihiin inay hoos maraan meel qoto aad u dheer oo ka badan 1,000 mitir oo aanay gaari karaynin gantaalada lidka ku ah laguna talagalay inay ka hortagaan gantaalkan gantaalada isaga kala goosha qaaradaha waxay sidoo kale ay ka mid yihiin kuwa ugu halista badan caalamka waxaana haysta oo kaliya dhowr dawladood oo awood u siinaya inay ku garaacaan meel kasta oo dunida ka mid ah kuwaas oo laga soo tuuri karayo dhulka badda iyo hawada sare waxaana Ruushka uu leeyahay 4 ka mid ah kuwa ugu halista badan caalamka haddaba maxay tahay qisada gantaalkan dhibaato intee la eg ayuuna sababi karaya haddii Putin uu adeegsado qisadiisa markaan eegno waa hub aad u halis badan oo ka mid ah hubka uu hadda amray madaxweyne Vladimir Putin in la diyaar geliyo oo heegan la geliyo adeegsigiisa waxay ka dhigan tahay bilaabashada dagaal nuclear ah ayna ka dhalan doonto dhimasho aad u tiro badan iyo burbur baaxad leh mid ka mid ah wargeysyada waaweyn ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa gantaalkan Terror lagu magacaabo wuxuu ku sifeeyay inuu yahay hubka ugu halista badan caalamka waqti xaadirkan waxaana ugu magacdareen Doomsday Terror gantaalkan waxa laga soo ridayaa gujisyada quusa biyaha hoostooda wuxuuna gantaalada kale kaga duwan yahay in gujisyada kale ee gantaalada lidka ku ah aysan gaari karaynin waxaana uu ku shaqeeyaa tamarta nuclear-ka siday xuseen marka warbixinada Mareykanka ka soo baxaya dhererkiisa ilaa 24 mitir ayaa lagu sheegaa taasi waxay ka dhigaysaa marka inuu aad ugu yar ekaan karayo gujis aad u yar ama gantaal plastic ah oo ku dhex socda biyaha badda waxa uu qaadi karayaa hal madax oo nuclear ah kaas oo gooyn karaya masaafo dhan 185 kilomitir saacadii awoodda madaxa ku rakiban nuclear-kana wuxuu sababi karayaa marka la adeegsado inay dhaliso mawjado tsunami ah oo dhulka la simi karaysa magaalooyin aad u tiro badan oo dhanka xeebaha ku yaala sida magaalada London ee caasimadda Ingiriiska gantaalkan waxa lagu talagalay in lagu burburiyo saldhigyada military ee ku yaala badaha sidoo kalena magaalooyinka dhanka xeebaha dhaca ayaa lagu talagalay in lagu burburiyo haddii laga soo weerar tago waxa kaloo loogu talagalay in lagu burburiyo maraakiibta dagaalka iyo gujisyada kale waa ka midka isku halaynayo
madaxweyne valadimir putin sida ayaad u aragtaa macluumaadkaas qaybta hoose aragtidaada ku reeb aad baad u mahadsan tahay wararka naga soo gaaraya magaalada lagu magacaabo Melitopol oo ka mid ah magaalooyinkii ugu horreeyay gacanta ciidamada Ruushka ku dhacay waxa lagu warramayaa maanta qaraxyo in laga maqlay qaraxa ugu weyn ayaa waxa uu ka dhacay suuq dad badan ay isugu yimaadeen oo dhanka koonfur bari ee dalkaasi ku yaala waana magaalada Melitopol lagu magacaabo halkaas oo ciidamada Ruushka iyo kuwa kale ee taageerada uu siinayo ay ku sugan yihiin magaaladan waxa ay ku taalaa dhanka koonfur bari ee dalkaasi Ukraine waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay jiray dhaqdhaqaaqyo xooggan oo ka dhacay gobolada Luhansk, Donetsk, Kherson iyo Zaporozhye halkaasoo Ruushka uu kaga dhawaaqay afti dadweyne iyada oo la doonayo in aftidaasi dadweyne ee la bilaabo maalinta biri ah ilaa 27 ayaana la filayaa in la soo gabagabeeyo taasi waxaa si weyn kaga hor yimid Mareykanka iyo dowlado kale oo dhanka gobolka ah oo sheegay inaanay aqbali doonin aftida dadweyne ee goboladaasi la doonayo inuu Ruushka uu ka qabto aftidaasi oo horseedi karaysa haddii dadka Russia ay u codeeyaan inay noqon karayso deegaano kale oo dalkaasi Ruushka ka tirsan